kulanti wanaagsan idin lahaantiin meel kasta oo naga daawanaysaan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan diiradda ku saari doono adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel oo kamid ah shirkadaha isgaarsiineed ee ka howlgala gudaha Soomaaliya ay gaarsiiso bulshooyinka Soomaaliyeed. waraysigan waxaa marti igu ah ilana qayb qaadan doona Maxamed Cabdullaahi Saciid Dhuubane oo ah maamulaha qaybta ganacsiga ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ee gobolada Puntland. marka hore ku soo dhawow waraysigan gaarka Maxamed Cabdullaahi waxaanu ku soo qaadan doonaa ama wax ku weydiin doonaa su'aalo dhowr ah oo ku saabsan adeegyada aad siisaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada aad u xilsaaran tahay ee deegaanada Puntland. bismillaahir rahmaanir rahiim Al-Fataax horta aad baa u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan howlwadeennada TV-ga caalamiga ee Kalsan TV iyo mulkiilayaashaba. intaas kadib waxaan rabaa inaan su'aashaada u guda gala ay weydiisay sida la socotaba Somtel 2015 bishii koobaad baa laga furay deegaamada Puntland Soomaaliyana hore bay uga jirtay gaar ahaan waqooyi iyo koonfurba baa kaga horeysay furitaankeedu. Somtel Puntland markii la furay waxay keentay bulshadeeda u keentay adeegyo ku caan baxay hufnaan iyo qanaaco qiimaha xagga qiimaha ah. adeegyadaas haddaan faahfaahiyo macaamiisha u faahfaahiyo tusaale ahaan adeegyada ay bixiyaan shirkadaha telecommunicationka waddanka jira horta giddigoodba waa keentay waana koofar garaysay. waxay sidoo kale ku dartay adeegyo dheeriya oo shirkadaha telecommunicationka caalamku ay bixiyaan. tusaale ahaan adeega ku hadalkoo kaleeto waxay keentay isagoo dhowr nooc leh oo prepaid leh yani qofku uu ku shubanayo intuu doono kadibna uu hadlayo, iyo adeeg la yiraahdo postpaid oo macmiilku uu lacagta adeega furanayo uu bishii oo dhan ku hadlayo lacagtana hadhow gadaal lagaga soo dalacayo. labada adeeg haddaan si kala faahfaahiyo adeega ku shubashada oo prepaidka Somtel waxay noqotay shirkadii ugu qiimaha jabnayd abid ee Soomaaliya soo marta iyo Puntland. macaamiishii Somtel Puntland horay dhowr iyo 20 sano u haystay shirkado kaleeto oo isgaarsiineed waxay u keentay adeegyo runtii culaysyo badan ka kiciyay. halkii dollar marka shirkadda Somtel Puntland lagu shubto maalintii waxa lagu hadlaa 120 daqiiqo oo Puntland oo dhan ah, habeenkiina waxa lagu hadlaa 160 daqiiqo. shirkadaha kale oo waddanka ka jirana xisaabtooda sida ogeyd waa wax ka yar 35 daqiiqo halkii dollar. markay macaamiishu waxaan u keenay hortay adeega markii la keenay culays badan baa ka kacay. adeega postpaid-ka sidoo kale dalalka dibadda markii qofku wacayo waa ka qiimo jaban tahay. haddii qofku uu Mareykan wacayo Somtel wuxuu ku hadlayaa halkii dollar 20 daqiiqo. Europe wax ka badan wadamada Europe iyo Australia iyo New Zealand halkii dollar wuxuu ku hadlayaa wax ka badan 9 daqiiqo. halka shirkadaha kale ay inta ay in ka yar ay keenaan. tusaale ahaan waxa adeegyada la keenay oo kale waxa ka mid ah shirkadu keentay haddaan adeegyada kuusi taxliiliyo waddanka hore uga jiray laakiin ay shirkadu keentay culays badanna qaaday. waxa ka mid ah adeega la yiraahdo dahab ama mobilka lacagta lagu qaadanayo. shirkadaha kale way jireen oo adeega haya laakiin dadka lacag bay ka qaadi jireen. laba qof oo wada fadhida haday lacag isu dirayso khidmad bay ka qaadi jireen. haday Somtel waddanka timi waxay keentay adeegaas oo meel kasta caalamka gaaraya, ma fahamtay? haddana bilaa khidmad Soomaaliya oo dhan ku gaaraya iyo Puntland gaar ahaanba. waxyaabaha ay ku faanayso Somtel Puntland oo aysan dadku hore u haysan oo la keenay waxa ka mid ah adeega 3G adeega 4G oo ay ku yartahay wadamada Afrika inay hayaan. shirkadihii waddanka jiray 20 sano jirayna aysan ku dhiiran inay 4G keenaan. Somtel Puntland waxay ka mid dhigtay adeegyadeedii ugu horreeyay oo markay qiimeyn samaysay oo bulshada reer Puntland la arkay inay dad dhalinyaro ah oo u baahan daytada ama internetka baahi badan ka jirtay. waxay isugu soo dartay inay adeegii caalamka uu ka tagay 2G-gii oo jira
iyo 3G iyo 4G casri la isugu keeno markaan isku soo duuduubo Somtel Puntland waxay macaamiisheeda u keentay adeegyada aan ku soo sheegay oo leh noocyo loogu hadlo qaab bil ah oo leh postpaid-kii iyo prepaid-kii iyo Allahu musta'aan calaamad sifuun mobile money lacagta jeebka lagu qaadanayay oo aad u yar marka la barbardhigo shirkadda Somtel shirkadaha kale ee ka howlgala gudaha Soomaaliya waa maxay farqiga u dhaxeeya dabcan shirkadaha kale ama waxyaabo ay kaga duwan tahay marka la barbardhigo shirkadaha ka jira gudaha Soomaaliya wax badan baa jira oo shirkadaha lagaga duwan yahay tusaale ahaan Somtel Puntland waxay caan ku tahay barnaamij la yiraahdo saamicilinta bulshada waxaanu waxyaabo aan hore u dhici jirin waxa kamid ah in macaamiishii telecommunication-ka ama shirkad macaamiil ay leedahay inay tiraahdo mudana macmiil intaana waa qaybtaadii dib u qaado tusaale ahaan macaamiil baa waxay ku shubanayaan lacagihii prepaid-ka $1 $2 $3 $5 $10 iyo wixii ka badan bay ku shubanayaan maalin kasta abaalmarin bay helayaan asbuucii abaalmarin bay helayaan bishiina abaalmarin bay helayaan weligeed ma dhicin shirkad u samaysa macaamiisheeda waa qodobka labaad anagu waxaan si specific uga qayb qaadanaa horumarinta dhalinyarada hadday tahay sports hadday tahay waxbarashadii hadday tahay tartamadii oo nooc walba leh haba u horeeya hana u weynaado tartanka quraanka kariimka sanad kasta dhaca oo gacan weynay Somtel Puntland ka geysato shaqo abuurkii dhalinyarada waxyaabo badan oo waxa jira aan kaga duwanahay shirkadaha kale aysan hore u keeni jirin sida og tahay waxa jira barnaamij dadka dhalinyarada lagu guddoonsiinayo aqal aroos oo dhameystiran baa lagu guddoonsiinayay gawaari baa lagu guddoonsiinayay dadka kale oo macaamiisha caadiga ah sidoo kale jeebkooda la soo kiciyaayo maalin kasta waxa laga yaabaa in laba guuleysto oo $20 Somtel Puntland bixiso Puntland oo dhan barnaamijka saamicilinta wuxuu ka mid yahay barnaamijyada ay samayso shirkadda isgaarsiinta ee Somtel haddii barnaamijkaasi ay jiraan dad ka faa'iideystay oo markii barnaamijkaasi uu soo gaaray jiray dad baahiyo gaar qaba oo runtii markii barnaamijkaasi la yiraahdo saamicilinta dadka ugu baahida badnaa oo helay haddii aad bal noo soo koobto mid iyo laba waa su'aal aad u wanaagsan iftaaxo horta waxa keena marka shirkad ganacsi tahay waxa ku maamula waa ganacsatada waliba waa macaamiisha marka shirkad ganacsi tahay cidda ku maamulaysa waa macaamiisha Somtel Puntland waxay study ku sameysay suuqa waxay yani baaris ku sameysay cilmi baaris buuxda suuqa waxa u soo baxday in shirkadaha telecommunication-ka wadanka hore uga jiray ay kaliya dadka u isticmaali jireen macaamiisha inay dantooda u ka eegtaan dhiig miirtaan ma fahamtay waxana soo baxay hanjab iyo niyad xumo macaamiisha ka timi waxay leeyihiin annaga shilin baa naga qaadaan kuumina naguma soo celisaan shilina naguma soo celisaan marka Somtel waxay go'aan ku gaartay inay macmiil kasta markii macaamiisha Somtel Puntland ay tusaale ahaan ku shubtaan $1 inay ugu yaraan 30 senti oo markay ugu yartahay inay 30 senti macaamiisha dib ugu ceshaan dariiqyo kala duwan ha soo gasho horta waa baahi ka timi macaamiisha ama waa fikrad ka timi macaamiisha saas horta ku fulmi qodobka labaad markii la rabo in barnaamij la sameeyo waxa jira baraha bulshada waxa jira message macaamiisha loo soo diro waxa jira telefoon macaamiisha ay naga soo wacaan kulli fikradooda la weydiiyo afkaarta la ururiyaa waxa la yiraahdaa macaamiil maxay kula tahay saamicilinta bulshada oo ay soo socota next time imaan doonta hadii la haydan ka dhigo maxaa jeceshaa inay noqoto iyaga goosanaya ma fahamtay xaaladaha gaarka ah haddaan tusaalayaal ku soo qaato oo saameynta badan yeeshay waxa kamid ah waxaan xasuustaa magaalada Buurtille wadaad caana oo masaajid imaamka ah muadimka ah masaajid buu ka aadama waxana loo sheegay wadaadkaasi markuu ku guuleystay aqalkii aroos oo dhameystiran waxa la sheegay in maalinta axad buu nasiibkiisu helay inuu aqalka ku guuleysto jimcihii masaajidka loo taagnaayo dadka loo gacan marnay waxa la wadaadkii waa aroosanaya ilaahay dartii wax isugu soo dardara sidoo u aroosto bal aqalkiisii loogu dhigo iyo xoolihii kale waxa ilaahay qadaray in ducadii wadaadka iyo ducadii dadka muslimiinta ee magaalada Buurtille ku tukanay in ilaahay uu aqbalo oo numberkii wareegay
uu nasiibkiisu intuu qabsado aqalkii aroosoo dhammaystiran la siiyo uu leeyahay waa dhacdo xaqiiqa ah dhacdo qof kasta uu yaqaan abuurtila markuu tago waana TV wax qarsoon ma ahayn oo idaacadaha iyo TV-yada kulli waa laga wada sheegay waa qodob labaad baa jira oo aan aad u xasuusto magaalada la yiraahdo waxay ahayd buraan sanaag gobolka sanaag waxaa jiray in gabadhi kaga guuleysatay laptop gabadha markii laptopka la guddoonsiinayay waxay sheegtay inay ahayd rajiyo agoon muddo 2 sanana ay kadib ka wareegaysa cid u iibisa laptop ayna dhigato mid kamid ah jaamacadaha magaalada Boosaaso aad ay ugu baahnay markaanu aragnay in yani annaga niyadeyda waxay ahayd ilaahu dadka ugu baahida badan oo gaarsii waa farxaysaa markii ilaahay uu dacwadii ka aqbalo oo qofkii ugu baahida badnaa baahidii ku sheegto ku yiraahdo ehel iyo qaraaba ii gada bal ehel baa ii ballan qaaday inay ii gadi doonaan laakiin ilaahay uu sumtil ka siiyay marka waa barnaamijyo runtii wax badan aad dareemayso inay bulshada ku soo celiyaan hadda waxa laga yaabaa saamicilinta bulshada maalintii la furay ilaa maanta ugu yaraan 3,000 qof baa ka faa'iiday qaar baa gawaari helay gawaarida nooca raaxada helay qaar baa qasaaladaha helay kuwa talaagada helay kuwa mobile helay kuwa aqalka arooska oo dhameystiran helay kuwa lacag helay kuwa scholarship helay oo jaamacado ku helay oo hadda jaamacada bilaash ku dhigta waxa laga yaabaa in waxyaabo kale oo yani wali aan wadanka soo gelin oo anfici doona bulshada inay soo socdaan hadii ilaahay ka dhigo waxyaabaha ku dhigyadiina kamid ah waxa ku jira la dagaalanka saddexda abaarood balado faahfaahin naga siinaya bal siyaabaha kale yihiin saddexdaas abaarood waa sax waa su'aal aad u weyn horta Somtel Puntland waxay si gaar ah ula dagaalantaa saddex abaarood sida sheegtay abaari waa abaarta dabiiciga ah oo markii tusaale ahaan xilli roobaad la sugayo roobkii imaan waayo oo yani sida hadda in haysato kale wadankeena haysato kale to abaaraha soo kale hortay ducona waa kaga qayb qaadanaa wax bixinna waa kaga qayb qaadanaa bulshada waxbaanu la wadaagnaa Boosaaso lacag baa laga bixiyay oo dadka gudiyada abaaraha lacag baa la siiyay Garowe waa laga siiyay Hargeysa waa laga siiyay Muqdisho waa laga siiyay Somtel Soomaaliya oo dhan waa isugu tagtaayo lacag malaayiin dollar iyo ku bixisaa hortay abaartaas waa abaarta dabiiciga ah saasaan uga qayb qaadanaa abaar kala jirto oo aysan dadku badanaa ku baraarugsanayn marka nin dhalinyaro ah ee Soomaaliyeed oo 12 sano waalidkii wax soo barayeen waa 4 sano ama 3 sano jaamacado dalka gudihiisa wax lagu baray markuu jaamacadii dhameysto markuu halka ka baxo saxaraga Liibiya tago oo 12 sano iyo lagu daray 4 iyo dhowr iyo 20 sano isagoo jira oo waalidkii inta lacag ku shubeen markuu Liibiya tago waa tacab ka khasar waana runtii abaar aad u xun dadkuna kuma baraarugsan markii nin dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah oo intaasoo sano wax lagu shubay markay wax soo celin gaartay ama uu gaaray ay wadanka iskaga baxaan ayna fiirsanayno qaladkana laga yaabo inay aabayaasheen leeyihiin ay dadkan platformkii ama dawladnimadii ama nimcadii u dhisi kari waayeen ku fashilmeen inay u dhisaan waa abaar aad u xun weeye waana abaaraha hadda wax laga yaabo abaarta kale markays 2 jeer markuu roob ku imaan waayo mar saddexaad markuu ku imaan inaa ka kabatay arigii ku dhaldhala laga yaabo laakiin qofkani markuu intaasoo rafaad iyo tihaal iyo jug iyo dil iyo dhac la geysto waalidkiina markuu ugu yaryahay $10,000 buu galay oo khasaare guriyahoodii baa xaraashay iyaguna way bixeen abaarta horta marka waxaan uga jawaabnaa waxay tahay dhalinyaradan dhiirigelinaa waa shaqaalaysiinaa tusaale ahaan Somtel waxa ugu yaraan ka shaqeeyay markii aan yani meesha ugu yar ka istaagno 400 oo dhalinyaro ah oo jaamacadaha ka soo kala baxay baa ka shaqeeyay 400 waxa ku tiirsan 400 oo kala ku tiirsan way biilaan way jaamacadii ka sii bixiyaan way dhulkii ku sii hayaan way ganacsi la wadaagaan ma fahamtay abaartaas horta iyada waxaan ugu talagalay barnaamijyo kale oo badanna waa sameynaa tusaale ahaan bangiga dahabshiil oo kale wuxuu sameeyaa barnaamij la microfinance
oo dhalinyarada uu dib lacag u siiyaayo tusaale ahaan $400 $800 iyo wixii ka badan maalgelin buu siinaya wuxuu leeyahay meesha saxraaga Liibiya tagi lahayd bal istaago isku dayna sandaqad furato isku dayna kabar furato la kabar baa inoo dhaama Yurub meel baa halka saxraaga Liibiya tagayna halkaas marayna Yurub bay tagayna markaan Yurub tagno 2 sano kadib rooti qallan baa fayl loo galay ma fahmi marka waxa leeyahay qofkii kabar furo adoo aqoon leh oo wax baranaya qudaar gad maskax baa haysataa fikir shan toban isugu taga business furta ma fahmi yani wuxuu sameeyay bale taa waa laga qayb qaataa waa la shaqaalaysiiyaa Allah musta'an ala ma sifuun hadii si kale wax loo tari karo jaamacadaha dibadda ay aadi karaan waa laga qayb qaataa barnaamijyada scholarship ko kale to saamacinta ka qayb qaadan karaan taasi waa abaartii labaad abaarta koowaad iyo tan labaad dabcan inta sadana ka gudubno waxa sheegtay in aan dhalinyarta aad u sameeysan kaabis ama taakulayn idinkoo ka taakulaynaya ama mataqaana gacan ka siinaya qof walba fikradiisa uu doonayo in uu ku meel maro ama ku shaqeysto haddii noqon lahayd mid ganacsi iyo haddii noqon lahayd mid waxbarasho bal haddii ay jiraan shuruudo aad ku xirtaan dhalinyartaasi kala duwan waxa macmiil qofkii shaqaalaha qofkii ahaa yani ardayga ama dhalinyaradii doonaysay inay barnaamijka investmentiga maalgelinta ka qayb qaataan waxa la doonayaa in wax yar oo shuruudo ay dhaafi karaan salaahanda qofkii waa garanaysaa hadii qofkii lacag cash la siiyo oo leeyahay iskala tag yani waa fahmaysaa sida u fududaanayso sidoo u qaaday ee u fududahay oo sidoo yani u soo celinayaan aysan u fududaanayn moogta marka waxa la sameeyaa shuruudo yar yar oo la garan karo oo la fulin karo waliba qof kasta uu fulin karo waa tusaalahan la qof damiina noo keen qof ku yaqaan oo ka damiina oo lacagtan yani ina ku shaqeynayso hadii la haydan ka dhigo garanti gareynaya barnaamijka kana kugu ilaalin doona keen qofkana waa la fiiriyaa barnaamijku haduu interest leeyahay oo uu barnaamij aad u fiican yahay oo dalkuna u baahan yahay la hubo wax soo saarkiisa isna waxa weey wixii bangigu uu easy gareyn karo oo easy gareeyaa waa u fududeeyaa yani okay abaarta saddexaad oo ah abaarta ugu daran yani xagga lacagta يعني أما جيبك قفك صالحا وأبار أن لجرن كرين أولو يراهدو أبار تدحسون سي خاصة إذا أبار تدحسون لو يراهدا وحويه قفكي أما جورجي وحككوا بين هاي هويو أب ويل جبر أما حبر أما أبتعيون بوهلسا أروح لجاب قويسكي إنه يهاي مركا نوعا في لأنه قويسكا في البنتلان حلقة التليفون كوكو هلا inay hooyo iyo aabe iyo laba ciyaal ay dhaleen badana ama qof ay dhalaan iyo dhowr qof oo guriga ku nool inay yihiin xisaabta marka fiiriso $1 buu qofkii maanta ku shubtay telefoonku ku hadlay 35 daqiiqo kaga dhamaatay haddaan dhan kale ka fiirino yani xisaab ahaan celcelis waxaan sameeynay in macmiilka ugu hadalka badan وكو هادلو 3 ساعة تليفونك يعني وقفك جنعسدها وقفك والدك ما فهمت ورجع يا دمرك مركا لا فيري 3 ساعة وقفك كو هادلو تليفونك قفك ugu hadalka badan qofka ku xiga waxa laga yaabaa 1 saac iyo bar inuu ku hadlo taqriiban 1 saac iyo celcelis 1 saac ilaa 1 saac bar meelahaas inuu ku hadlay qofka saddexaad oo ugu dambeeya oo ugu hadalka yar والله 25 دقيقة إلى 35 دقيقة 25 دقيقة إلى 40 دقيقة أنت ودحي سوق هذا 24 hours لا 4 ساعة كهذا مركي أنت مركا كله فتو شركتها ما أنت ودك كجرا مركا تسألها 3 ساعة وقايب الصو يعني صدني 5 دقيقة لأن موقتها هل كي $1 وصدني 5 دقيقة ما فهم شركتها ما أنت ودك كجرا saddexda user ama saddexda qof oo telefoonka midna ugu hadalka badan yahay midna kan dhaxeeyahay midna kan ugu hooseeyo saddexaad yahay marka la isku daro celcelis ahaan shirkadaha kale oo aan ahayn Somtel bishii waxay ka qaadaan lacag ku dhow $30 $30 sanadkii marka la xisaabiyo waxay celcelis tagayaan $684 ba hooyadii laga qaaday
sidoo kale $684 aabihii baa laga qaadaya $684 gabadhii waa laga qaadaya wiilkii baa laga qaadaya iyo dadkii guriga ku noolaana waa laga qaadaya ma fahamtay waa lacag badan dadkuna ma arkaan waa abaar daahsoon waay ma fahamtay markay Somtel waxay u timi inay dadka ka badbaadiso abaarta daahsoon waxay u keentay laba barnaamij oo is saaran waa kow Somtel waxay tiri in hortay macmiilku markuu $1 ku shubto inuu ku hadli karo 120 daqiiqo maalintii oo dhan iyo 160 daqiiqo habeenkii ma fahamtay waxayna xisaab celcelis ahaan markay fiirisay saddexdaa qof oo qofna 3 saac hadlo qofna uu hadlo 1 saac iyo bar qofna 25 daqiiqo ilaa 35 daqiiqo inta u dhaxaysa uu hadlo celcelis ahaan Somtel waxay soo saaraysay 100 iyo dhowr iyo 90 shirkadaha kale tan maxay soo saaraysay sanadkii 680 وما زاد sooma 684 been Somtel 190 been 190 kii bay ka dagaalantay Somtel waxay keentay $90 ma fahamtay marka Somtel ku dhufato tusaalahan celceliska ama average-ka saddexdaa qof marka ku dhufato daqiiqadaha ay Somtel u keentay bulshadeeda waxa ku soo baxaya in shirkadda Somtel sanadkii uu ku hadli karo macmiilkii wax ka yar $90 ma fahamtay sidoo kale si abaarta daahsoon ay ula sii dagaalanto Somtel waxay macaamiisheeda u sameysay barnaamij la dhaho kaabe ma fahamtay kaabe macnaha ka dareemaysa macaamiishii buu kaabayaa jeebkoodii buu kaabayaa oo u naxariisanaya qofkii macmiilka ahaa markuu ku shubto $5 macmiilkii bishii oo dhan wuxuu helayaa bilaash $5 buu ku shubanayaa wuxuu leeyahay ii fura adeega kaabe bishii oo dhan wuxuu helayaa bilaash ma fahamtay marka hadda taas sii fiiriso marka $5 ku dhufato 12 bilood oo sanadkii ka kooban yahay waxa ku soo baxaysa in $60 waa sanadka dhan telefoon ku hadlayso shirkadaha kale tan waa sida hadda soo sheegay $684 baa ku hadlaysa markii waa abaartii saddexaad oo ah abaarta daahsoon oo dadka loogu dirnaxayo oo la tusayo inaysan yacni waajib ahayn ama ku khasab ku ahayn ama sandulle ku ahaynoo berigii hal shirkad ama يعني dadku u xiraa aysan ahayn ma dadku doorasho leeyihiin option iyo choices badan kala leeyihiin sidaas oo kaleeto abaarta daahsoon waxa ku jiray la dagaalanka abaarta daahsoon waxa ku jiray telefoonka marka transaction la sameeyo ama lacagaha la kala xawilay shirkadaha jira bariga hore khidmad bay qaadi jireen laakiin Somtel markay timi sida ay tan oo kale ula dagaalantay waxay dadkeeda u keentay adeeg casri ah dal iyo dibad lacagta u dirayso magaalo kasta aad dirayso akoon kasta aad ku iibsanayso Allahu musta'an ala masif inta aad doonto aad lacag dirayso xilliga aad doonto aad helayso oo hadana bilaa khidmada la keen marka abaartii daasoonayd oo telefoonka marka lacag la isugu xawili jiray dadka khidmada laga qaadi jiray culayskaasi waa fiidmo wala laga tagay haddana culayska dadka aan isleenahay culays badan baa saaran waxaan u dhimaynaa dadkii u keeno adeegaas oo codkii fasiixa lahaa jaban ma faham adeegii prepaidkiisi iyo adeegyadii kale to meel kasta laga helayo macmiilkii xitaa uu lacagta iidahabkiisa kaga shubanayo uusan u baahnayn inuu branch tago ama meel kale tago ama uu shirkadda Somtel soo booqdo ma fahamtay sidoo kale to macaamiishu waxay u keentay shirkaddu saami celintii bulshada kuma ekaan macaamiishii kaliya waxay kale to xitaa u geysay dadka baranjiilayaasha because hadda waxa la keenay adeeg lagu magacaabo ka macaash ma fahamtay waa 108 يعني حدق بقول يسديد أفرجيس بالله تابنيه قفكي برنجيلها لعقت هالكاسو كجشبنيه مش وقف Somtel أما هو Somtel كجشبن لها يعني أديك جيسا أكون كيسو جدها يلعقتي وحول يجري كجشبنيه ما فهمتي؟ سلام وحسمين يا مركو رقفك وحال رأينو إيده بيسكسو ريجستر جريسانيا كدبنا أديك قال الله فري أديك كم عاش لنا الله فري مركو ربنا وحسمين يا قفك وحتابنيه حدق بقول يسديد أفرجيس waxa u soo baxaya xawlaad miyaa rabtaa ها ودهيا لعقتي ولا سو دغيا انتو ربو كدب سيدي عادي ahayd macaamiishu uga sii iibsanaya eeg markuu qofkii $100 ku shubto $16 baa u saaran boqolkiiba 16 baa u saaran yani faa'iida shirkadaha kale ma keenaan shirkada ugu badan waxa laga yaabaa inay boqolkiiba 12 tahay maanta jirta laakiin boqolkiiba 16 iyo boqolkiiba 12 waa dareemaysa waa shirkad cusub almost 2 sano jirta suuqii may qabsano suuqii wali suuq ku filan may haysato waa dadaal bay ku jirtaa haddana saasay tahay waxay u keentay inay macaamiisheedii ama macaamiishii Puntland siiso adeegba adeegu ka tayo badnaa oo ka qiimo badnaa iyadoo ku siinaysa
faa'iidada ka sarreysay ma fahamta sidoo kale barnaamijka ka macaash baranjiilaha wuxuu helayaa saami celin isaga u gaara tusaale ahaan markuu ku shubto $2,000 wuxuu helayaa boqolkiiba 16 marka $2,000 ku shubto boqolkiiba 16 waa almost $300 meelahaas lacag ka badan $300 oo faa'iido buu helayaa markuu jeebkiisa ku shubto shirkadda Somtel ugama hareyso wax laga macmiil waxa u qalantaa wax inta ka badan oo dheeriya saami celin baa la sii siinaya lacag cash la sii siinaya waana message-di waa loo soo diray boqolkiiba 20 baa waxa laga siinaya faa'iidadu soo saaray ma fahamta markay marka waa dhanka prepaid Soomaaliya waa dhanka prepaid-ka dhankii kale tanada waxa socda saami celintii maalin kasta $20 baa la bixiyaa $40 baa la bixiyaa laba guuleysta asbuucii mobile la bixiyaa bishii laptop baa la bixiyaa taasi waa macaamiisha caadiga ah waa barnaamijkii saami celintu aan joogsiga balahan ilaa maantii la furay ilaa maantana soconayo way kaas dadweyne fara badan oo kamid ah dadka reer guuraaga ama xoolo dhaqatada ah maadaama ummadda Soomaaliyeed ay u badan yihiin dad xoolo dhaqataa waxaa jira kaarar aad bixisaan dabcan dadka reer guuraaga waxay kamid yihiin dadka isticmaala kaararkaas waa maxay bal farqiga u dhaxeeya dadka reer guuraaga iyo dadka ku sugan magaalooyinka Puntland good su'aal wanaagsan Cabsaxo sida sheegtay Somtel hortay muddo yar bay jirtay 2 sano ah haddana waxay gaartay baaxad weyn oo bay gaartay oo ilaa iyo bari oo dhan badana waa gaartay sanaag warkiisa waa gaartay karkaar nugaal sool gobolada dhan waa gaartay saasay tahay waxa jira dadka meelaha fogfog oo laamiga ahaan ku nool faa'iido gaar ah ku qabaan shirkadda jirta waxa weeye fiiri shirkadaha qaar marka loo kaco salaam bariga fog oo kale ama sanaag bari marka loo kaco sanaaga fog iyo adigu magaalooyinka aan ahayn laamigu marin oo dhan marka loo kaco hadda waxa ka sheekeynaa halkii $1 waa 35 daqiiqo ka sheekeyneen laakiin iyagu dad reer guuraa ah oo masaakiina oo gacanta ugu badan iyagu u baahan ma fahamtay yaa waxa ku helaan 15 daqiiqo halkii $1 marka Somtel markii dadka u tagtay waxay u geysay dadkii magaalada waxay haysteen bi xaqiiqo u geysay telefoon cod fasiixa leh qiimo jaban leh ma fahamtay adeegiisi xilli kasta helayo qancintii macaamiisha kasta loogu soo jawaabayo Allah musta'an ay ku helayaan lacag ay ku helayaan barnaamijyo saami celinta bulshada ah oo anfac badan siiyay dadka baadiyo ku wada guuleysteen shirkadaha kale tan marka $1 ku shubtaan 15 daqiiqo waa fahmaysaa nin baadiyo jooga wuxuu dadkiisa u kula hadlo waa yar tahay marka waxa u geysay waxa weeye intaan ku sheegay cod fasiixay u geysay adeeg hufan bay u geysay adeeg lamida adeega reer magaalku qaataan bay u geysay oo qiimo jabana 120 daqiiqo maalintii 160 daqiiqo habeenkii barnaamijkii kaabe ma fahamtay iyo geysay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxa ka jira abaar kala duwan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada waxay saameeyeen dadkii xoolo dhaqatada ah ma jiraan gacan ay ka geysatay shirkadda isgaarsiinta Somtel wallahi waa su'aal aad u wanaagsan Cabsaxo wax badan bay hortay Somtel ka qabatay horta abaartana yani waxa ilaahi baa wax ka qaban kara ma fahamtay yani inuu hadii bini aadanahay wuxuun bay istari karaa wuxuun bay iska kaabi karnaa laakiin abaartani waa abaar yani baaxad leh oo weyn maanta $1 milyan oo abaarta loogu deeqay waxba tarmayso ma fahamtay laakiin Somtel ama Dahabshiil Group intii karaankooda waa sameeyay eeg boosaaso gudiga boosaaso lacag bay ku wareejiyeen ama gudiga abaaraha waa ku wareejiyeen garow way ku wareejiyeen Allahu musta'an calaamad sifuna waxay ku wareejiyeen meesha la yiraahdo Hargeysa ku wareejiyeen xamar bay ku wareejiyeen yani Soomaaliya oo dhan Dahabshiil Group si guud iyo si gaar ah ay uga qayb qaadatay abaarta laakiin abaartu waa abaar aad u weyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala waan ka rajaynaynaa inuu bulshadiisa ka kor qaado insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa in xilli roobaadka soo socda in roob aad u fiican heli doono insha Allah walayskan Ilaahay ka fiidi doono way marka qorshayaasha ka degsan wallahi qorshayaasha nooga degsan waxay tahay inaynu inaanan ma daalayno waa sii wadaynaa insha Allah ta'ala
ama maxaa la yiraahdaa wax ka qabashada waa sii wadaynaa haday tahay biyo-dhaamis haday tahay taakulayn haday tahay yani ka qayb qaadashada oo si lacag ahaan uga qayb qaadashada gurmad ahaan kulliba waa ka qayb qaadanayna waana sameynay waana ku tala jiraa inaan sameeyno insha Allah taala waxba indhaan lagama laaban karayo waayo eeg ganacsiga maanta aan anagu wadnaa haddaan ku sheegay ku leeyahay waxaasan kordhin doona ama waxaasan helay meesha uu ka soo unkamay waa baadiyaha ma fahamtay meesha uu ka soo unkamay ganacsiga maanta wadankeena ka jiraya waa baadiyaha dadku qofkii miyiga lahaa oo xoolihii ay jireen oo dadkeena ay jireen hadduu baaboo magaalada waxa ku taagnaamayso waxba ku istaagmayso waxaan badeecadan la keenayo meesha ugu dambayso lagu isticmaala waa baadiye oo la geeyo oo xoolaha laga soo bedesha marka waa ku khasbanahay waa arin yani aanan ahayn bariyo yani waa arin aan ahayn in yani la isu tilmaamo waa arin ay tahay waajib in laga qayb qaato waana ka qayb qaadanay insha Allah taala isticmaalka ugu badan ee dunida maanta waa aalada internetka Soomaaliya waxa la sheegay inay kamid ahayd meelaha ugu hooseysa isticmaalka ama uu ka jiro internetkaas waxa la sheegay in uu yahay internetka ka jira gudaha Soomaaliya internet uu aad u hooseeyo tayadiisu shirkadda Somtel markay timi geyga ummadda Soomaaliyeed maxay ka bedeshay fine waa arin aad u weyn markii hore dacaayad baa jiray Soomaaliya gaar ahaan Puntland inaan internet fiican dadkaas haysan inaan lagu talagelin ba in Puntland internet la geeyo hay'adaha qaar waxay sameyn jireen daytadooda diyaarad bay u soo kareen jireen Nairobi rabaa inay dayta ka soo qaadaan oo Garowe keenaan diyaarad baa la soo saaray flash ama hard disk Garowe la keenay shaqadii la rabaa lagu fulinayaa dadkii la rabay in loo distribute la siinaya Soomaa haddii la rabo in Puntland laga qaado data oo la geeyo meesha la yiraahdo Nairobi ama meelaha kale oo adduunka kamid ah sidoo kale diyaarad baa loo sii dhiibi jiray horta internetka meeshaas ka joogo waxa kale oo ka joognay in dadka qurbaha ku maqan dibadda ku maqan ay hal iska dhigtaan qofkan inuu Soomaaliya tagay ama Soomaaliya joogo waxaan ku gartaa internetku soo galaa 15 daqiiqana waa online hal saacna waa offline يعني waxay ka wadaan yani xumaanta internet oo meesha taalay waxa kale oo muujinaya meesha internet berigi hore joogay Somtel ka hor waxa muujinaya adigu wariyaa tahay waana ahaan jirtay warka waxa diri jirteen waxa laga yaabaa warka marka warka duhurkii qabataan ama barqadii qabataan inay warka habeenka diri jirin ina warkaas tafatiri jirteen diyaarin jirteen saari jirteen aalada lagu diro habeenka soo dhan aan kaga seexan jirteen internetka isagoo saaran subaxii dambe saaran duurkii dambe u dhaco waa wax xaqiiqo la og yahay oo jirta Somtel baa timi waxa uu keentay internet la isticmaalo kii ugu casrisanaa adduunka fiber optic u keentay mid kale haddaan ku daro conceptiga qaldan oo laga aaminsanaa internetka tusaale ahaan hay'adaha maanta jira oo waaweyn oo internationalka ah maba aqbali karin ba in internet shirkad Somtel Puntland ama shirkad Soomaaliyeed inay internet xawaare leh oo kaafin kara ama ka qabtiri kara baahidoodii internet inay jirto way iska ilowaan waxayna galiyeen inaysan macquul ahayn ma fahamta okay Somtel Puntland ma timi internet bay keentay kii ugu sareeyay fiber optic ah oo caalamka laga isticmaalo dadkii bay tustay bulshadii bay u geysay hay'adihii bay u geysay dawladii bay u geysay wax badan bay qaadatay in runtii nala aamino oo qof kasta uu dhaw way ognahay shirkadahaas waa warsaasay sameeyeen jireen labada bilood oo horeysa idin qabanayna saasay dhigi jireen laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin min maalintii Somtel Puntland la asaasay yani Puntland laga sameeyo internet la keenay ama Somtel Soomaaliya oo dhan internet la keenay ilaa maanta waa number 1 internetku kaliya ma codka waa number 1 cidi kaga haysto codka ma faham hadduu fasiix yahay iyo hadduu yani qiimo jabnaan yahay marka hadda internetka ku jira internetku noocyo badan buu leeyahay isagoo wuxuu leeyahay dedicate ah waa xirmooyin xiran tusaale qofka waxa lagu leeyahay intaasa bandwidth intaasoo MB baad iibsanaysaa intaasoo MB kama hoos maraysid adigu bas kale iyo internet la dhaho shared
wadho qofkii waxa lagu gelinayaa pool internetkii isticmaal de qof kala intii aad gadato kala gadanaya maybe waa ka badnaan kartaa intii aad gadatay maybe waa ka yaraan kartaa waa saburaysa ma fahamtay kaasna wayna kala qiimo jaban qiimaha ku kala duwan yihiin waxa internetkii kugu jira 4G oo portable flashkii baa sidataa computerka gashanaysa meesha danto la wareegaysa wifi-gii baa sidoo kale to wadataa cafeteria-dii baa la fariisanaysaa gaarigii baa ku wadataa اللهم استعان عن حفيزكاagii baa ku wadataa oo adoo wata xafiiskii baad isticmaalaysaa marka waa internetka yani meeshii ay internetku berigii hore joogi jiray waxaan aaminsanahay 100% inuu horumar weyn ka sameeyay dadkiina ay ku qanceen in ay dadkii reer Puntland la tartami karaan caalamka maadaama maanta wiilka Mareykan ku nool oo reer USA ama kan Ingiriiska ama kan Sacuudi degani inay 4G maanta haystaan isagoo Puntland jooga oo Soomaaliya oo isna 4G haysto ma fahamtay uu arday yahay kaasna arday yahay uu library-da caalamka online-ka ay wax ka daalacanayaan uu isna ka daalacanay ma fahamtay yani waxaan u keenay inaan yani tusi karo in Somtel Puntland ama Somtel inay u socoto inay de meesha dadkaasi joogaan ay maalin kasta sida ugu dhow u geyn karto iyadoo qiimaha dadkeeda eegaysa dadku la mid maaha yani marka la eego GDP-da ama koritaanka ama dakhliga dadka soo gala dadka Mareykan joogay dadkeenu isku mid maaha marka aan leeyahay aaladii Mareykan taaleyba Puntland laga helayaa marka aan leeyahay macnaheedu maaha qiimihii Mareykan laga helayaa Puntland laga helayaa maaha yani anagu u diirnaxayna oo qiimaha dadkeena ugu bees gareynayna loo sameeyay waaya dadweyne fara badan ayaa ka daawanaya muuqbaahiyaha Kalsan haddii ay jiraan fariimo aad hawada u marinayso ama ballanqaadiyo aad u samaynayso dadweynahaasi kala socda TV-ga Kalsan ما شاء الله جانس كان هرتا افتح او سي waa جانس aad weyn macaamiisha Somtel meel kasta joogan horta waa salaamaya waana u hambalyeynaya waana ku faraxsanahay inay macaamiil Somtel ahaadaan waana rajaynayaa inay sii ahaan doonaan insha Allah taala dadka dhageysanaya oo aan Somtel sidan oo shirkadaha kala sita mid baan leeyahay waxaan leeyahay adigoo abaartii dahsoon ama abaartii degneyd ay kugu socoto oo haddana raalli ku ah waxaan leeyahay macmiil waxaan jeclahay inaad ku fikirto way baad ku bixinaysaa $684 adiga kaliya haddaad tahay aabe way baa ku bixinaysaa haddaa hooyo tahay way baa u bixinaysaa haddaa walaal tahay gabar ama wiil way baa u bixinaysaa isweydii fikir waxaan kuu haynaa ama Somtel ay kuu keentay inaad sanadkii oo dhan aad ka soo guuri karto $600 oo aad u soo guuri karto $60 fiir farqiga u dhaxeeya ma fahamtay waxaan kuu haynaa in halow kuma maqlo maxaa tiri inaad ka timaado oo aad u timaado waxay ila tahay inaan adiga wada joogno yani marka codka fasiixiisa inaad shabakada mashquula inaan la lahayn lamarkaan waa weydee ku cili inaan lagu lahayn in yani markaa garaacdo hore ka helayso insha Allah taala waa lagu hay waxa kale oo lagu hayaa shirkadu haday bulshadeedii gaar ahaan dhalinyaradii ay isku dayday intii karaankeeda ahayd inay ka badbaadiso tahriib ayaa imtixaano xora u qabato wiil iyo gabar aysan kala soocin kii ilaahay calafkiisa uga dhigay ay siiso darajooyinkii ugu sareeyay ay ku jiraan inay dumar hayaan ay gabdhahayaan gabdho walaalaheena oo wax bartay oo qoonyahana oo asturan xafiisadooda ku asturan ay joogaan sidoo kale toona de u jajaban inay habeen iyo maalin adeegyadii ku qabtaan markii doorashadu waxay ku xiran tahay kaliya macmil inaad fahamto in abaar daahsoon ay kugu socoto sidii ay hore kugu socotay adigoo la jooga wiilkaaga oo lacagtii iskuulka aabe waxaan waa ku soo diray mobilkaaga ka fiirso adigoo leh yaa khidmad laga goosanay feer ma hay anaguna raali kama hay waxaan ku keenay dahab bilaa khidmada sida taas yani uga timi uga doorbiday inaad aado dahabo bilaa khidmada aaday haddana waxa ku leenahay maxaa kugu khasbaayay $684 oo sanad kasta aad bixiso
adigoo eeg 600 oo lagu daray yani marka hooyii aabi ciyaal ku darto wax laga yaabaa $2,000 noqoto $2,000 waxay kugu goysaa inaad dalka dibadiisa wiil jaamacad u geyso ama 4 ama 5 inaad jaamacadaha localka uga soo saarto haday ehel yihiin haday qaraabo yihiin markii Somtel waxay ku keentay adeegyadii tusaale ahaan internetkii oo 3G le mobilkaaga ku isticmaalayso sidoo kale 4G oo mobilkaaga ku isticmaalayso adeegii kaabe oo $5 ah ku shubanayso bishii oo dhan hadlayso oo si free ah local postpaid ah ku hadlayso wadanka oo dhan Allahumma ta'ala waxay ku keentay saamicilin bulsho oo joogto ah ma fahamtay maalin kasta waxa laga yaabaa in telefoonka marka lacag ku shubato inaad systemka gasho dadka u tartamaya oo nasiibkoodu helay haduu nasiibkaaga ku soo qabto waxa laga yaabaa inaad hesho $20 waxa laga yaabaa inaad hesho mobile smartphone oo 4G ku shaqeynay waxa laga yaabaa inaad laptop noocyada ugu dambeeyo casriga ah hesho marka mudana macmiil joysku caadi dadka kalsan TV ga daawanaya macaamiisha dalka dibadiisa ku nool waxa leeyahay kolba wadankii waa imanaya wadanku waa wadankooda airportadii baan diyaar ugu nahay meelaha magaalooyinka laga soo galaan diyaar ugu nahay shirkadu waa shirkadoodii hadii dalalkii ka yimaadaan haday tahay Europe iyo Mareykan haday tahay Carabaha haday tahay haday Afrika tahay waa shirkadii ugu raqiisnayd ee Somtel timaada sidaas oo kale tan mar allaaliya markii uu macmiilkaas uu ku hadlo bil adeega postpaid-ka 50% ma loo dhaafay waxa kale oo inta dheeriya adeeg la yiraahdo igula soo hadal bilaash ama voice of IP okay macmiilku wuxuu bixinayaa bishii $20 lambarkiisi localka ah ee Puntland yaa waxa loo dul saarayaa lambar dibadda ah ama Mareykan ama Europe yaa loo saaraya okay dadkiisi qaraabadiisi joogay dibadda gaar ahaan Mareykan iyo Europe waxay kula soo hadlayaan si u dhiganta bilaash yani waxa la siiyay qofka marka taalan UK uu ka yimi wadanku yimi waxa rabaa adeegii la soo hadal ama VoIP ii fura waa loo furaya lambarkii Somtel uu ka qaataa waxa loo dul saarayaa lambar UK ah ma fahamtay marka ehelkiisii qaraabadiisii UK joogay waxay soo garaacayaan lambarka UK qofka la siiyay waxay ka dhigan tahay isagoo UK la dhex jooga marka price jaban bay ku soo garaacayaan bishii waa $20 lacag jaban waa local ko kale iyagoo Ingiriiska iska wacayo kaleeto bay noqonaysaa marka dadkana iyaga oo sheegnay marka waxa leenahay ku soo gabagabeynaya Somtel Puntland waxay ku soo dhaweysay gacmo furan waxaana rajeynaysaa insha Allah ta'ala inay inta uga la sii dhawaato waxay idin keentay adeegyo jaban oo qiimo jaban leh hufan marka reality laga hadlo waa intaasoo aan rajeynayna inaan ka sii dadaalo oo ka sii jabino kana sii hufno mudana macmiil choice-ka ama doorashada aan leedahay waxaan rabnaa inaad wax yar waqti qaadato aad ka fikirto way baa lacagta inta la ku bixinaysaa way baa lacagan ku saarnay ku bixinaysaa way baa adigoo dadkaaga ku heli karaya inaad kula hadasho lacag aad u jaban maxaa ku saarayna lacag yani badan kula hadasho Somtel markuu qofku Puntland yimaado koonfur oo dhan Somtel way ka jirtaa tuulo kasta iyo magaalo kasta koonfur way ka jirtaa waqooyi tuulo kasta iyo magaalo kasta way ka jirtaa lambarka Somtel ah qaadato intoo dhan waa kula hadlaysaa Soomaaliya oo dhan waa kula hadlaysaa lambarka xamara ka qaadato Soomaaliya oo dhan waa kula hadlaysaa lambarka ka qaadato Hargeysa Berberiya Burco sidoo kale yani waa Somtel Soomaaliya oo dhan waa marka Somtel Soomaaliya oo dhan waxaan leenahay soo dhawaada macaamiisha aad mahadsan tahay Maxamed Cabdullaahi Saciid Dhuubane maamulaha qaybta ganacsiga ee shirkadda Somtel ee deegaanada Puntland barnaamijka waxaanu kaga hadlaynay ama wareysiga gaarka adeegyada ay shirkadda isgaarsiinta Somtel oo kamid ah shirkadaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ay siiso bulshooyinka Soomaaliyeed daawadayaal intaanu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno waxaanu ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh